guulaha uu gaaray markabka shidaal baarista ka wada gudaha Soomaaliya ee Turkigu leeyahay. Baaritaanadii laga sameeyay badda Soomaaliya waxaa lagu arkay kheyraad iska ceegaaga. Baarayaasheenna waxay noo sheegeen in Soomaaliya ay hoggaan u noqon karto wax soo saarka shidaalka caalamka, ayuu yiri Erdogan. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in haddii la soo saaro kheyraadka kaliya uusan anfici doonin Soomaaliya ee xitaa uu kobaca dhaqaalaha Turkiga kaalin weyn ka qaadan doono. Waxa uu carabka ku dhuftay in dowladda Turkigu si taxadar leh u baari doonto shidaalka Soomaaliya kadibna la soo saari doono, taasina ay fursad weyn bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa Turkigaba u abuuri doonto. Turkiga ayaa Soomaaliya u soo diray maraakiib sahan iyo baaritaan ka wada xeebaha Soomaaliya, kuwaas oo haatan warbixinada hordhaca ah iyo natiijada ay soo saareen ay u wanaagsan tahay dalkeenna, isla markaana ay sheegeen in Soomaaliya ay u tartami karto 10 wadan ee ugu soo saarid